videogayga aan uga hadlayay Canon 70D Mark II waxa qaybta commentiga iga soo codsaday in aan review ku soo suubiyo Canon 90D Maxamed Xuseen oo salaam saaxib codsigaagina waa kana ku soo dhawaada janaalka Daami Films waa Ismaaciil Daami maanta waxaan ka hadlaynaa Canon 90D maxay ku fiican tahay maxay ku xun tahay bal aan ku hormarno waxa ay ku fiican tahay lambar 1 Canon 90D waxay ku fiican tahay waxay leedahay shaashad aad meesha rabtid u wareeji karaysid taasoo ka caawinaysa hadii aad tahay YouTuber ama vlogger in aad muuqaal iska duubtid kaamirada adoo arkaysid in focuska iyo wax walba ku saxsan yihiin maadaama shaashadeeda aad dhinaca rabto u wareeji karto faa'iidada labaad ee leedahay Canon 90D waxay tahay baterigeeda oo cimri dheer taas macnaheedu waxay tahay baterigeeda wuxuu ku hay karaa maalin dhan oo aad muuqaal duubayso laakiin waxa mar walba kugu talna in ay haysatid battery spare si hadii kaamirada baterigeeda originalka ah si kadisa kaaga damo aad kan kaleeto spare-ka ugu bedelato shaqadaadina ay kugu sii socoto stress la'aan qodobka saddexaad oo ay ku fiican tahay Canon 90D waxa uu yahay waxay leedahay auto focus nadiif ah taas macnaheedu waxay tahay tusaale hadda markii aan muuqaal kaamirada ku duubay hadii aan dhaqdhaqaaqo ama dhinacan aado ama xataa hore aan u soo sigto kaamirada focuskeeda anigoo ahayna asagoo si nadiif ah qodobka afraad ay ku fiican tahay kaamiradan waxay leedahay high resolution megapixel kaasoo ah 32.5 megapixel oo macnaheedu yahay hadii aad high resolution aad ku duubtid kaamirada muuqaal ah sida muuqaal dhaqaaqayo kaleeto cayaaraha kaleeto hadhowtii markii ay editing suubinaysid muuqaalka waxa ku suubi kartaa cropping adigoo yareenayo isla markaasna uusan ka dhumaynin videogi quality-giisa mar hadii aad ku duubtay high megapixel resolution qodobka shanaad oo ay ku fiican tahay Canon 90D waxa uu yahay waxay leedahay wax la yiraahdo focus beacon markii aad rabtid muuqaal inaad duubtid waa inaad isticmaashaa manual focus oo ah inaad focuska gacantaada manual ahaan ugu isticmaashid markaad manual focus aad kaamiradan u isticmaalaysid waxa lagaaga baahan yahay qaybta setting inaad tagtid oo focus beacon aad raadisid kaasna aad on ka dhigtid oo furtid focus beacon muxuu yahay focus beacon markaa furtid tusaale waxa joogtaa xaflad aroosadii arooskii duuboosa dad dhex soo socdaan aroosadii waa dhaqdhaqaaqooyaan taas waxay ka caawinay inta duubistaanka wadid focus beacon haduu ku furan yahay wuxuu ka caawinaa in dadkii dhaqaaqayeen aad ogaatid inay focus ku yihiin oo si nadiif ah kaamirada u arkayso taasna waxa ka caawinaya kaamiradan waxay suubinay qofka wajigiisa iyo dhinacyadiisa wixii ka soo yaray waxay ku wareejinay color kaasoo noqon kara blue jaale ama sidoo kale gaduud markii colorkaas oo ku wareejiso kaamiradana waxa uu ku sheegaysaa in colorkaas wixii ka baxsan out of focus yihiin oo ka baxsan yihiin focuski intii colorkaas ku jirtana oo focus kaamirada ku tahay dad macnaheedu muuqaalka marka aad duubtid video si nadiif ah qofkaas wajigiisa aad u arki doonto qodobka lixaad sidoo kale ay kaamiradan qabto waxa lagu soo dhusay audio bot kaasoo aad samiicada dhigaha gashi kartid markii aad muuqaal ku duubaysid isla markaasna muuqaalka duubaysid codkiisa aad la socon karto intii aad duubista wadid ku darso waxay kale leedahay mic bot oo mikrofoonka aad ka geli karaysid hadaa isticmaalaysid kan mikrofoonkan ama isticmaalaysid mid cable ku xariirisay labadaasba kaamiradan way leedahay mar hadii aan ka soo hadalnay kaamiradan waxyaabihi ku fiicneed dabcan waa inaan kor istaagnaa waxyaabaha ay ku xuntahay qodob koobaad kaamiradan waxay ku xuntahay waxay leedahay kaliya APS-C sensor frame oo ma lahan full frame waa maxay farqiga u dhaxeeyo APS-C sensor frame iyo full frame tusaale masawirkan sida ka arki kartaan kan waa full frame kana waa APS sensor frame farqiga u dhaxeeyo waxay tahay furitaanka isha kaamirada ay furmayso kala weyn frame-keeda kala weyn hadii si kale ta idin fahamsiyo tusaale hadda muuqaalkan aan duubayo u jeedin waxaan ku duubayaa full frame kaas markaan duubo hadhowti editing markaan suubinayo waxaan suubi karaa full frame kaas inaan cropping ku suubiyo oo macnaheedu tahay in aan soo dhaweeyo muuqaalkii ilaa inta camal aan ka dhigo waa taas farqiga u dhaxeeyo full frame iyo
APS-C sensor frame. sida arki kartaan frame-ka labadan camera way kala weyn taasoo macnaheedu tahay APS-C haddii aad muuqaal ku duubtid waxa uu la mid yahay adoo video full frame ku duubtay ka bacdina cropping aad ku suubisay oo aad soo dhaweysay subject-teeda. haddii aad rabtid inaad meel cariiri ah muuqaal ku duubto sida studio-han oo kaleeto kameradaada Canon 90D waa kugu adkaanay sababtoo ah waxay leedahay APS-C sensor kaliya ee ma ku duubi karto full frame. qodobka labaad waxyaabaha ay ku xunta kameradan waxaa ka mid ah ma lahan video stabilizer. taas macnaheedu maxay tahay haddii kamerada gacantaada ku haysid ama muuqaal ku duubtid oo muuqaalkaas shaking ay gacantaada suubiso ama dhaqdhaqaaq ay suubiso hadhowti editing-ka waxaa ku qasbanaanay inaad maaragtay stabilization ku suubisid sababtoo ah kameradan laguma dhisin build stabilizer. laakiin xalka wuxuu noqon karaa inaad soo gadatid haddii ay haysatid Canon 90D lens ama weyneyso leh build stabilizer sida lensigan oo kaleeto. sida ujeedi kartaan lenskan wuxuu leeyahay build stabilizer. haddii aad rabto waxaa ka dhigay on, haddii aad rabtid waxaa dhigay off. marka haddii kameradaada aad rabtid ina maaragtahay gacan wax ku duubtid isla markaasna stabilizer maadaama ku dhisneen waxaa u baahan tahay inaad soo gadatid lens ama weyneyso stabilizer leh sida kan oo kale. marka iska hubi haddii aad haysato Canon 90D oo aad rabtid inaad soo gadatid lens inuu leeyahay lenskaas video stabilizer. ugu dambeyntii haddii aad haysato Canon 90D oo aad tahay YouTuber ama muuqaal duube sida aroos kaleeto kameradaada waa sii haysan kartaa ilaa aad ka helaysid lacag kale oo aad kamera ku gadatid. markaad rabtidna inaad kameradaada si isticmaashid waxaa u baahan tahay lens ama weyneyso taasoo ka caawin doonto baahidaada muuqaal duubis. haddiise 2024 aad go'aansatid inaad kamera cusub soo gadatid Canon 90D gabka dheh. waayahay waxaa la soo gaaray codsigayga. haddii aad muuqaalkan ka heshay linkiga yaalo qaybta commentiga waxaan ka codsan haddii aad Amazon wax uun ka dalbanayso inaad linkigaas ku dhufsatid. waan rajaynayaa inaad muuqaalkan wax badan ka faa'iideen. intaan muuqaal kale ku kulmayna waa Ismaaciil Daamey oo idin leh toddobaadkan ha idinku wada maado wax qabad.